السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا سيتو اكاديمي. مانتا وحان كهادلينا superposition theorem. superposition theorem waxaa la yiraahdaa ama wuxuu sheegaa in voltage-ka ama current-ga maraya elementi ama branch-gaasoo ku jira linear circuit lagu siiyey oo linear ah, branch ku jira voltage-ka ama current-ga maraya wuxuu la mid yahay isku geynta voltage-yada ama current-yada maraya elementigaas marka loo fiiriyo independent source walba. tusaale ahaan horta shuruudda koowaad oo superposition la iska rabo waxaa waaye waa inay ku jiraan circuit-ka wax ka badan laba source, ama laba current source ha ahaadaan ama laba voltage source ha ahaadaan ama current source iyo voltage source ha ahaadaane waa inay ku jiraan wax ka badan laba source, ama laba source ama wax ka badan inay ku jiraan. kadib branch kamida circuit-kaas voltage-ka maraya ama current-ga maraya haddii lagu diro waxaad ku helaysaa isku geynta voltage-yada ama current-yada maraya branches-kaas marka loo fiiriyo inta source oo ku jirta mid walba gooni loogu fiiriyo ayaa lagu helaa. intaas waa qeexitaankiisa. haddii aan isla garanay superposition muxuu yahay, waxaa ku xiga maxaa u isticmaalnaa superposition waxaan u isticmaalnaa wuxuu ka faa'iido badan yahay marka loo fiirsho nodal analysis iyo mesh analysis. aad buu uga faa'iido badan yahay, laakiin cillad wuxuu leeyahay aad u weyn. cilladaas maxaa waaye? waxaa waaye haddii lagu siiyo circuit ay ka kooban ama circuit ay ku jiraan afar source ay ku jirto, waqtiga aad ku xalinaysid aad buu u dheeraanayaa. ilaa waxaa laga rabaa in source walba aad u tixgelisid baa laga rabaa, ama source walba aad ka shaqaysid. marka faa'iidadaasna waa leeyahay, faa'iida daradaasna waa leeyahay. okay, waxaan usoo laabanaynaa note-kan yar oo aan ka qornay oo laga rabo inaad maskaxda ku haysid mar walba markii superposition uu kugu soo dhacaba waa inaad maskaxda ku haysid. note-kan waxaa lagu dhahay waxaad tixgelisaa hal independent source u tixgeli markiiba waxaad tixgelisaa hal independent source ama hal source macnaha oo independent ah. independent source iyo dependent source-na hal casharaan ka diyaarinay, gadaal ugu laabo soo faham. kadib markaa kaas u tixgelinaysid waa inay kuwa kale oo dhan ay off ahaadaan, kuwa kale oo dhanna waa inay off ahaadaan. waa ta koobaad. tan labaad waxaa waaye haddii ka waran source ku jira ay yihiin dependent source haday yihiin, haddii ay dependent source yihiin wax dusha kaa saaran ma ahan, ha xirin, ha ka shaqayn. keliya hal haddii lagu siiyo hal independent source iyo hal independent source haddii lagu siiyo hal voltage hal process laga rabaa, markaas hal process baa laga rabaa. laakiin haddii lagu siiyo wax ka badan hal independent source haddii lagu siiyo waayo marka laba process laga rabaa. haddii hadda waxay ku xiranta inta process laga rabo inta independent source oo lagu siiyey ayay ku xirantahay. mid off dheh kan kale ka shaqeey, mid off dheh kan kale ka shaqeey, mid off dheh kan kale ka shaqeey. saasaa looga shaqeeya superposition theorem. haddaba waa kuwee steps-ka la rabo inaad qaadid markay ka shaqeynaysid superposition theorem? waa kow, waxaa lagu dhahay turn off all independent source except one source. waa hadda intaa soo sheegayno kale hal independent source maahane inta kale off dheh. kadib waxaad kaas kasoo heshaa output voltage-ka ama output current-ga hadba ta lagu diray ayay ku xirantahay. haddii circuit-ka branches-kaas haddii lagu yiraahdo waxaa soo heshaa branches-kaas voltage-ka maraya ama branches-kaas current-ga maraya, waa inaad mid walba hadba hadalka lagu siiyey aad u tixgelisaa. lambar laba waxaa lagu dhahay step-kii koobaad soo celceli ilaa aad ka dhameynaysid source-ga dhan. source-yada ilaa aad ka dhameynaysid soo celceli
stepkii koowaad macnaha off dheh ka shaqey off dheh ka shaqeeya laga wada. kan saddexaad waxaa lagu dhahay markaad mid walba kasoo heshid outputkii lagu diray hadduu voltage ahay hadduu current ahayba isku soo dardar haddii 3 source lagu siiyey 3 current oo kala duwan ama 3 voltage oo kala duwan soo heshay kulligood soo qabo isku soo dardar. isku dardaritaankoodaas wuxuu la mid yahay voltageka laga rabay ayuu la mid. stepskana waan fahnay. haddaba stepska haddaan fahnay waa inaan ayaga fulinaa. waxaan ka shaqeynaynaa examplekan waxaa lagu dhahay adigoo isticmaalaya superposition theorem waxaa soo heshaa v0 oo ku jira circuitkan lagu sheegana waa givenkan kan lagu siiyey wa kuwan kale anaa sameeyey waa processkii marka kana adiga lagu siiyey waxaa kasoo heshaha lagu dhahay outputkan oo ah v0 soo helaa lagu dhahay. haddaba stepski muxuu ahay turn off all independent source except one macnaha off ka dhig independent sourceska hal maahane. haddaba laba independent source aan haysanaa current source iyo voltage source oo 4 ampere iyo 10 volt ah. haddaba hadda anugu marka koowaad waxaan off ka dhigay current sourcega sawirkaana iisoo baxay sawirkan baa iisoo baxay markaas sawirkan markuu iisoo baxay maxaan sameynayaa waa hal loopna maxaa la dhihi jiray total voltageska oo la isku daray wuxuu la mid yahay 0. haddaba waxaan dhahayaa halkaanaan kasoo bilaabaya waxaan dhahayaa minus v plus v1 plus v2 plus v3 is equal 0. halkan waxaa maraya v1 v2 v3 aan ka dhigi. okay waxaan dhaha marka minus 10 v1 maxaa lagu helaa 5i hal ayaa maraysa waa serious waay plus 3i plus 2i is equal 0. kadib ayada dhan waa isku mid isku dardar 10i is equal tana wareeji 10 meel walba u qaybi i waxaan soo helnay 1 ampere. haddaba meeshan waxaa ogaataa v3 inay lamid tahay v0 aan raadinayni v01 taas aan raadinayni inay lamid tahay. hadda marka v3 maxaan ku helna v3 intaanaan ku helna 2i marka waxaan leenahay v01 waxay lamid tahay 2i idii hadda meeqaan soo helna 2 into 1 halkan waa 1 iyo 2 loo moodin waxay lamid tahay 2 waxay lamid tahay 2 volt. ansarka koowaad waa soo helna. sawirkan kale aan u laabanayna sawirkan kale waxaan dhahaynaa ayadan soo gelay halkan waxaan u qaadanaynaa node aan u qaadanaynaa ayadan soo gelaysa waxaan ka dhigaynaa i total ka dhig waxaa ka dhigtaa ay kale inay ka baxayso i1 ay kalena halkaan uga baxaysaa i2 marka i total waxay lamid tahay i1 oo lagu daray i1 oo lagu daray i2 kadib i1 intaanay maraysaa marka labadan hal ayaa maraysa hal kaloo ayna intay maraysaa macnaha ayada kale intay soo maraysaa. marka waxaa jira sharcigan hore usoo sharaxnay oo la yiraahdo current division rule muxuu sheegayay haddii lagu siiyo laba resistor haddii lagu siiyo total currentina lagu siiyo hal resistor waxaa hadda i1 waxaa kusoo helaysaa r2 oo loo qeybshay r1 plus r2 oo lagu dhiftay i total saana ahayd sharciga current division rule saan u ahay. marka anagoo hadda i1 aan raadinaynaa maxaan ku helaynaa i1
I1 waxaa maraya laba resistor labada resistor hal si usoo qaadana I1 waxay la mid tahay 5 oo ah R2 labadan isku dar total kooda isku dar oo ah 10 macnaha hal I1 intay wada maraysaa marka waxay u dhigantaa R1 ay u dhigmantaa intan R3 oo lagu daray 5 macnaha 3 oo lagu daray 2 waxay la mid tahay R1 5 tan waxay la mid tahay R2 kadib oo lagu dhiftaan dhahaynaa total I oo ah 4 waxay la mid tahay waxaa kasoo baxaya meeshaan 2 ampere 2 ampere waa I1 intay maraysaa marka VO2 waxay la mid tahay I1 oo lagu dhiftay R ta maraysa oo la mid ah 2 oo lagu dhiftay 2 4 volt marka VO1 waa soo helnay waatana VO2 na waa soo helnay V totalka noola diray V series maxay la mid tahay marka waxay la mid tahay VO1 plus VO2 oo la mid ah VO1 oo aan soo helnay 2 plus VO2 oo ah 4 la sii mid ah 6 volt answerka nagala rabay waa kan ahaa waa ila fahamteen aan filayaa superposition qaabka u shaqeeyo wuxuu yahay intaba in ila fahamteen aan filayaa intaas ayaan jeclahay inaan casharka maanta kusoo gabagabeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu